وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجب كيس وحنبار واجب كيسا وهسن مينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو وهسن مينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو قول وعن عدوك وابدو نولو الوناكسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين مقعي ومع الحمسة حيد عايزوك بدونا إن شاء الله ما أنت نسوي دونا مادة بيولوجيا جارهان فصل كصدحات مفهوم 3 كلاسز كأنه كوتشرني وحين مركا مرينا يونس كصدحات والله يقانو هيومن فيسيولوجي بين كوتشرني هيومن فيسيولوجي كمركا وحين صار جناي chapters afar baynu soo qaadanay afarta chapter hore waynu soo dhameynay waxaynu bilaabay oo aynu ku guda jirnay systemka u dambeeya ama chapterka u dambeeya magaciisa loo yaqaano human reproductive system ama habdhiska bini'aadanka tarankeena ku jirin habdhiska taranka bini'aadanka aynu markaa casharada ka soo doonaa insha Allah dilay ka dhigo waxaanu doonaynaa markaa chapterkeena casharkiisa oo horeeyay inuu maanta qaadanayno inaynu objectives iyo goals u sameeyno goalska waxa ugu horeeya inaynu barano wax iska weydiino habdhiska taranka bini'aadanka muxuu yahay habdhiskani muxuu kaga duwan yahay habdhisyada kale jirka bini'aadanka sida habdhiska dhiig wareega iyo habdhiska neefsiga iyo habdhiska dheefshiidka cuntada iyo qaybaha kale ee jiray faraha badan systemka waxaan ka warrami doonaa markaa saddex astaamood ama saddex aspects uu leeyahay oo isaga khaas ah oo kaga duwan yahay dhammaan systemska kala jira inta markaynu ka warramano wuxuu kaga duwan yahay systemyada kale waxaanu u gudbaynaa shaqada systemkan oo ah reproduction macnaheedu waa maxay isweydiin definition of reproduction baynu eegin taranku muxuu yahay isweydiin waxaan inta u gudbaynaa taranka iyo noocyadiisa taranka jisiile iyo taranka jisilaa waxay yihiin baynu kala saaraynaa kaasina waa objectiveskeena labaad weyn objectiveskeena saddexaad wuxuu noqonayaa inaynu bal hadoogaano waxa loo yaqaano male reproductive system componentskiisa habdhiska taranka laba inuu qaybinayna waxaynu qaybinaynaa male reproductive system habdhiska taranka ragga ama male-iska ma labka inuu eegina iyo habdhiska female reproductive system ka la yiraahdo habdhiska taranka female-iska ma dhidigaynu eegina ma dumar qayno horeysiinayna marka waxa way syllabus-kani buugeena ugu yaala waa male reproductive system waa habdhiska taranka ee labka weyn waxaynu ka warramaynaa markaa habdhiskan taranka bini'aadanka xubnaha sameeya maxaa kala yiraahdaa componentskiisa neegin waayo ariga system marka laga warramayo waxa sameeya the groups of organisms sameeya xubno isu tiyaa sameeya systemkaasina markuu xubnahaas ay wada shaqeeyaan shaqo dhameystiran buu jirka bini'aadanka haya systemka marka maxaa abuuraya xubnaha abuuraya baynu eegi doonaa qaybo kamid ah marka qaadan doonaayo la yiraahdo testis ama testicleska shaqadooda iyo qaab dhismeedkooda baynu eegi aynu nimaan hada chapterka magaciisa iyo barxada barbeelowga chapterkan habdhiska taranka bini'aadanka wuxuu ka duwan yahay habdhisyada kale horta waa habdhis shaqadiisu ay tahay reproduction waa habdhis shaqadiisu ay tahay taran waa habdhis awood u yeesha in nooluhu soo saaro noola u eeg oo markaa cusub si loo bedelo markaa waxa weeye noolayaasha dhimanaya tarankeenu eegana wuxuu noqonayaa marka habdhiska taranka bini'aadanka markaynu ka warramayno wuxuu kaga duwan yahay saddex aspects hore u sheegnay saddex muuqaal number 1 systems kala jirka bini'aadanka wuxuu kaga duwan yahay
systemkan waxa la yiraahdaa qodobka koowaad ku duwan waxa weeye waa essential for species waa waxyaabaha systemkani dheer yahay systemska kale waxyaabaha uu dheer yahay waxa kamid ah inuu yahay ama muhiim u yahay species-ka waxa loo yaqaan species waxaan soo diin karnaa erayga species waa maxay species waxa la yiraahdaa waa group of organisms that can interbreed and produce fertile offspring waa noole ama waa koox nooleyaal oo isku jinsiya isla mar ahaantaana taran dhexdooda sameyn karo istarmin kara iyagoo markay istarmiyaan waxay soo saari karaan noole cusub oo noolahaasina taran buu sii sameyn karaa marka waa noole speciesku istarmin karaya dhexdooda soona saari kara markay tarmaan noole sii tarmid kara bini'aadamku waa nooleyaal isku mid ah taran bay sameeyaan ubad baa ka soo baxa tarankooda ubadkaasi xaaladda puberty markay gaadhaan taran bay sii sameyn karaan ubad kale ay soo saari karaan marka waxyaabo ku duwan yihiin system kale qodobkooda ka weyn qodobka baad ku duwan yihiin system kale waa in specieska waxa weeye muhiim u noqdo muhiim wuxuu ugu yahay wuxuu ka hortagayaa waxa loo yaqaan extensionka systemkani extensionka maxaynu ka wadnaa extensionka waxa uu jeedaa bulshooyinka dabargo-a ku yimaada waxa ka hortagaya systemkan saasuu bulshadii markaa muhiim ugu noqonaya qodobka kale ka duwan yahay systemska kale waxa weeye waxa la yiraahdaa systemkani wuxuu noqdaa functional oo shaqeyn kara become functional at puberty time at puberty waqtiga qaangaarnimada ayuu systemka shaqadiisa qabtaa waxa la yiraahdaa dhammaan systemska kale ee jira shaqadoodu way shaqeysaa qofka markuu dhasho laakiin xaalad baa jirta bini'aadamku ay tarmi karaan oo puberty la yiraahdo systemkani marka xaaladaas uu aad u shaqeeyaa xaaladaas ayuu shaqeynaya shaqadiisuna waa taran weeye ilmaha yar xaaladda puberty qaangaarnimada marka intaanu gaarin da'daas lagu talagalay inuu ku tarmo waxa weeye taran ma sameyn karo marka qodobka labaad uu kaga duwan yahay systemska kale waxa weeye inuu shaqadiisu dhacdo oo functional noqdo puberty-ga xaaladda loo yaqaan puberty-ga waa xaaladda qofku taran sameyn karo weeye astaanta saddexaad uu leeyahay systemkani waxa la yiraahdo wuxuu soo bandhigaa systemkani exhibit wuxuu soo bandhigaa high dissimilarity high level of dissimilarity between sex qodobkaas saddexaad uu sheegaya inuu systemkani soo bandhigo kala duwanaansho aad u badan ama aad u xeel dheer ay kala duwanaadaan waxa weeye male-iska iyo female-isku marka dumarkii iyo raggiina kala duwanaan karaan systemka kani isaga mas'uulka ah horta systemkani marka waxa weeye saddexda astaamood ayaa lagu garanayaa saddexda astaamood ba khaas u yihiin waxa la yiraahdaa waa three unique aspects of reproductive system waa saddexda qaab dhismeed ama saddexda astaamood ee waxa weeye systemkani khaas ku yahay ee waxa weeye kaga duwan yahay systems kale kaga duwan yahay way inta waynu sheegnay waxa weeye saddexda qodob waxaan u gudbaynaa haddaba inaynu shaqada systemka garanno shaqada systemka waa reproduction way marka reproduction maadaama systemkan shaqadii uu haye ay tahay waxaynu u baahanahay definition-keeda inaynu helo marka reproduction sida caadiga marka la baranayo astaamaha noolaha lagu yaqaano ee nooluhu kaga duwan yahay waxa aan noolayn ama noolaha kaga duwan yahay toddoba astaamood baa jiray toddobada astaamood waxa kamid ahaa astaamaha taranka loo yaqaano reproduction ba kamid ahay waxa noolima tarmaan oo taran ma sameeyaan waayo astaantaas inay buuxin astaanta marka wixii buuxiya ayaa nool lagu tilmaami karaa astaantan maxay noqonaysaa marka muhiimad bay leedahay marka definition-kiisu waxa la yiraahdaa taranka waa habka iyo nidaamka ama process-ka uu nooluhu ku soo saarayo ama lagu soo saaro waxa loo yaqaano the new individuals shakhsiyaad cusub ama noole cusub lagu soo saaro marka waa the process waa nidaam waa hab reproduction-ku of producing lagu soo saarayo new individuals sheegayna waxa weeye waa offspring waa noolayaashii cusbaa ee dunida ku soo biiraya ee taranka ka soo baxaya markii noolayaashu ay sameeyaan waxa la yiraahdaa offspring baa la odhanayaa waa new organisms weey marka habka loo soo saarayo noole cusub ee nooluhu soo saarayo si loo bedelo noolayaasha dhimanaya ayaa loo yaqaan habka reproduction baa la odhanayaa
marka reproduction waxa leedahay waa processka ma waa habka nooluhu ku soo saaro noolo cusub marka uu ku soo saaray way hadaba noolayaasha markay taranka sameynayaan astaantaas ma reproduction inuu bixinay in noolayaasha sameeyaan laba inuu qaybinaynaa waxa la yiraahdo sexual reproduction iyo waxa loo yaqaan asexual reproduction. Sexual reproduction waa naqaanayo waa taran siila weey waa taran la garanayo waxa weeye sida uu inta badan parentska sameynaya marka waxa la waxay ku duwan yihiin labadan different u weyn waxa weeye waxa sexual reproduction ka sameeya oo la xiriira ama u dhici kara marka la helo waxa loo yaqaan two parents laba waalid marka la helo labada waalid laakiin waa inay noqdaan the male and female labada waalid maxay noqonayaan waxay noqonayaan mid lab iyo mid dhadig bay noqonayaan waayo labadaas marka waxa yeeshan unugyo tarameed ay ku tarmaan unugyo tarameedka ay ku tarmaan gametes baa la yiraahdaa ama reproductive cells baa loo yaqaanaa maleisku marka waxa yeeshaan unugyo la yiraahdo sperm cells waxa yeeshaan maleisku sperm cells unugyadaasi waxay taran la sameeyaan my evolution iyo qabsa ay la sameeyaan unugyada la yiraahdo egg cellska ee femaleisku yeeshaan labada unug taran marka waxa dhaxmara waxa loo yaqaano ay sameeyaan fertilization bacrimin baa ku dhacda bacrimintaasi markay dhacdo maxaa soo baxa waxa ka soo baxa unug cusub oo la yiraahdo zygote marka zygote unugaas hadhow noqonaya noole ama qof bila aadan dhameystir noqonaya marka taranka sexual reproduction ka la yiraahdaa wuxuu la xiriira ama sameeya oo involved two parents laba waalid marka si kala hadaynu dhigno gametes ama sex cells ama reproductive cells ayaa mas'uul ka noqonaya tarankan reproductive cells kaasi laakiin wayna ka kala yimaadaan males iyo females way nooca labaad ee taranka waxa la yiraahdaa asexual reproduction asexual reproduction waa tarankiisa lawa la yiraahdaa isagu wuxuu ka dhacayo kaliya waa awood u yeeshay inuu sameeyo only one parent hal noolo kaliya noolayaasha inta badan ku aragno waxa kamid ah noolayaasha microorganismska oo noolaha imika loo yaqaan ameebada qaybtan protozoa kamid ah wuxuu ku tarmaa hab la yiraahdo binary fission way waa hal unugle unugaas marka laba noqonaya laba kala jabay unug cleavage baa ku dhacaya way unugaas marka hal unug oo kaliya weey waxa awood yeeshay inuu qaybsamo oo laba unug soo saaro labada unug ee soo baxayna laba noole bay u taagnaanay haduu kan marka ameebaha labada unug soo baxaya labada ameebay noqonayaan marka taranka halka waalid ka dhacaya ama halka waalid u baahan si u dhaco ayaa la yiraahdaa asexual reproduction marka halka waxaanu kaga baxaynaa arday waxaanu kaga baxaynaa halka reproduction ka definition kiisa iyo types of reproduction taranka markay noolayaashu sameeyaan labada nooleeynu oo qaybinay baan kaga baxaynaa marka laba objectives baynu haynaa waxaynu haynaa system kan reproductive system ka la yiraahdo muxuu kaga duwan yahay systemka kale saddexda qodob baynu qornay waxa kale aynu haynaa shaqada system kan waa reproduction ku muxuu yahay noocyo ma leeyahay labada qaybood baynu qaybinay waynu dhaafaynaa waxaynu garaynaa objectives-keennii saddexaad ama goalkeennii saddexaad oo ahaa inaynu ka warrano bal habdhiska taranka ee bini'aadanka qaybtiisa la yiraahdo male reproductive system marka human reproductive system ku laba noqonay ilaa inagii niri similarities buu keenaya systemkani kala duwanaansho aad u keenaya male reproductive system waxaynu ka warramaynaa components systemka habdhiska taranka ee maleska ama ragga marka waa systemka waa habdhiska taranka ee maleska ama ragga components buu yeelanaya components maxaan ka wadaa components waxaynu ka wadnaa system kan maxaa sameynaya waayo system waxa la yiraahdaa waa habdhis weey habdhiskuna xubnuhu ka sameeysan yahay xubno ayaa sameeya marka xubnaha sameeynaya maxay yihiin bay isweydiineen waayo organisku markay midoobaan ay shaqo gaar jirka qabtaan system ay soo saar jireen system kan shaqo jirka u hayay marka system kan habdhiskan taranka maleska xubnaha sameeyeen saddex qaybood baynu qaybinaa xubnaha sameeynaya saddex qaybood baynu qaybinaynaa
waxaynu u qaybinaynaa xubno la yidhaahdo primary sex organs iyo xubnaha labaad oo la yidhaahdo secondary sex organs iyo qanjidho dheeraad ku ah systemka oo la shaqeeya oo aanu ka maarmayno loo yaqaano accessory glands way waxaan isweydiinaa primary sex organs maxay yihiin primary sex organs waxa weeye waa xubnaha taranka ee koobaad ee habdhiska taranka ee ragga weyn marka waa xubnaha asaasiga waa xubnaha systemkan inta ugu badan shaqadooda fulinaya ilaan habdhiska taranka bini'aadamku waxa weeye waa inuu taran sameeyo raggu inuu taran sameeyaa xubnaha markaa taranka inta badan mas-uulka ka noqonaya waxa weeye haddii ay shaqayn waayeen systemka raggu aanu shaqaynaynin waa primary sex organska secondary sex organsku waa xubnaha kuwan caawinaya ee kuwani waxay soo saaraan dhammaystiray way isku xidhan yihiin way qanjidhadaas waxaa la yidhaha accessory glands saddex bay noqonayaan waxay dhammaystirayaan habdhiska taranka shaqadiisa gaar ahaan male reproductive systemka waxaan isweydiinaa maxay yihiin habdhiska taranka ee ragga xubnaha kaalinta koobaad ku jira xagga muhiimadda iyo shaqada waxay yihiin xubnaha loo yaqaano testiska marka primary sex organs of male reproductive system waxaan ku tilmaamaynaa testis ama testicles magacooda kale maxaa la yidhaahdaa testicles baa loo yaqaanaa testicles waa xiniyo weyn waa qanjidhada labada ah ee raggu yeeshaan ee u qaabilsan inay sperm cellska soo saaraan marka testicleska ama testiska waa xubnaha koobaad ee systemkan weeye si gaar ah u dirsaynaa imika shaqadooda iyo anatomigooda ka warramaynaa maqaabismeedkooda qaybta labaad waxa la yiraahdaa sayna hore u sheegnayba secondary sex organs maxaa kamid ah secondary sex organs waxa kamid ah waxa loo yaqaano epididymis waa tubes marka dusha sare ama top of the surface of the testis laga helo xagga sare ee marka waxa weeye xiniyaha laga hela shaqadooda arki doonaaye kuwani waxay soo saaraan sperm cellska sida halkan ugu qoran unugyada taranka haddaba meesha lagu kaydiyo unugyada marka la soo saaro ee maturation kooda ku dhamaystirmo ayaa la yiraahdaa epididymis marka waa site of sperm storage waa meeshii lagu kaydinayo unugyada taranka ee sperm cellska la yiraahdo waxa kamid ah primary sex organ secondary sex organska waxa loo yaqaano vas deferens waa dhuun weyn vas deferens maxay tahay vas deferensku waa dhuun ku xidhan waxa la yiraahdo epididymis ka soo baxda oo sperm cells ka soo qaada oo keenta dhuun yar oo la yiraahdo urethra halkeen uga muuqanaysa sawirkeenan dayno eegno waxay noogu qoran halkan habdhiskii taranka meeliska inoo yaal waxay noqonayaan wixii la oran jiray testis xiniyi bay noqonayaan testis haddaan halkaa ay ka dhigo waa markaan ka warramay singular of testis hal xininoo keliya haddaan ka warramay maxaan odhanayaa test halkaas ma ay ka dhigay hadday laakiin ay tahay waxay noqonaysaa jamac ay noqonaysaa testis marka meesha kala duwan waa spellingko halkaas hadday ay tahay waa hal xiniin marka laga warramayo hadday tahayna waa labada xiniinoo la isku daray marka laga warramayo halkaa waxay noogu muuqdaa duub yaroo madow oo dul saaran xiniinta ah kaasaa magaciisa la yidhahdaa epididymis taa maxaa loo yaqaanaa epididymis male ama epididymis waxay qabtaan sperm cellska lagu kaydiyaa oo sperm cellska yaa soo saara testiska iyo xiniyaha soo saaraya haddaba halka marka lagu kaydiyo waxa la doonayaa waqtiyada qaar in laga qaado waxa qaadaya oo xambaaraya marka la doonayo in sperm cellski fertilization sameeyaan oo hawl galaan xadhko ama tubuska markaas waxa la yiraahdaa vas deferens maxaa loo yaqaanaa vas deferens waxa kaloo la yiraahdaa sperm duct maxaa loo yaqaanaa sperm duct waa dhuunqaadaha qaadaya hawada ama sperm cells qaadaya xaguu geynaya marka tubekaas markuu soo qaado sperm cellski oo epididymis ka soo qaado wuxuu geynayaa tube ka yar ee hoose halka maraya tube ka yar ayuu geynaya tube ka yar maxaa la yiraahdaa tube ka yar waxa loo yaqaanaa ee halka maraya
bartanka maraya xubinka taranka waxa la yiraahdaa urethra kaas u gaarsiinaya marka urethra way xubnaha taranka secondary sex organs ku jira waxa kamid ah peniska waa xubinka taranka ee ragga weey waa xubin tarameedka lab weey penisku waa xubinkaas ay noqonaa maxay waxay noqonaynaa penis way marka afarta xubnood shaqadoodu waxa weeye inay gudbiyaan sperm cells oo qaada iyo waliba inay kaydiyaan marka sperm cells-ka ama unugyada taranka testicles-ka soo saaraya oo primary sex organs-ka iyagu noqonaya xubnaha marka hadhow lagu kaydinayo qaarkoodna qaadaya ilaa jirka dibadda looga saarayo waxa weeye waxa la oranayaa secondary sex organs waa afarta xubnood weey saddex kamid waa ducts saddex kamid waa maxay waa tuubooyin waa ducts weey sperm transport ducts balayda waa xambaarayaasha iyo kaydiyaasha unugyada taranka sperm cells-ka la yiraahdo iyo copulatory organ maxaa loo yaqaanaa copulatory organ waa xubin awood u yeesha si gaar ah inuu dirsaynay in jirka uu ka saari karo sperm cells-ka unugyada taranka marka afarta xubnood maxaa la isku yiraahdaa secondary sex organs epididymis xaga laga helaa testiska dushooda laga helaa oo kuwaas weey epididymisku oo maxay qabtaan oo ay kaydiyaan unugyada taranka sperm cells-ka la yiraahdo vas deferens dhuntaas maxay qabataa iyadoo waxay ku xidhan tahay iyadoo xiriir ka dhaxaysiinaysa epididymiska iyo tube-ka yar la yiraahdo urethra ee xubinka taranka dhex maraya ragga kaas xiriir ka dhaxaysiinaysa marka maxay qaadaysaa sperm cells-kii bay qaadaysaa waxay ka qaadaysaa epididymiska qaadi doonta ay geeraysaa urethra bay geeraysaa urethra hadhow dibadda ayuu saaraya unugyada taranka way afarta marka xubnood ayaa la isku qoray secondary sex organs waxa jira xubno iyo qanjidho systemkan aad ula shaqeeya qanjidhadaas maxay yihiin qanjidhadaasi waa qanjidho caawinaya volume-ka iyo mugga ay yeelanayso waxa loo yaqaano sperm cells-ku ama semen maadaama waxa loo yaqaano ay sameyn doonaan waxay soo saarayaan accessory glands-ka iyo sperm cells-ku sidoo kale waxay caawinayaan nourishment waxay quudinayaan unugyada taranka waxay sidoo kale faa'iidinayaan xubnaha taranka ee urethra ka mid yahay ee female reproductive tract oo ka mid yihiin bay neutralize ku sameynayaan neutralization bay ku sameynayaan si gaar ah inuu darsinaa qanjidhadan shaqadooda mid walba qanjirka koobaad waa qanjir marka lamaana waxa la yiraahdaa seminal vesicles seminal vesicles ayaa loo yaqaanaa qanjirka labaad waxa la yiraahdaa prostate gland qanjirka saddexaadna waxa la yiraahdaa ovaries gland saddexda qanjir waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago hakuwaano waadankeenu guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago
hakuwaaro wadankeenu waa wadnihii jirhkeenna waraabinay dhiigo aan ku ardina wadankeenu waa wadnihii jirhkeenna waraabinay dhiigo aan ku ardina